Soonqaad wanaagsan daawade. Sidaan ognahay tiknoolajiyaddu waxay lafdhabar u noqotay horumarka dunidan ay ku tallaabsanayso. Sidoo kale waa muhiim inaad taqaano sida loo adeegsado kombiyuutarka. Magacaygu waa Axmed Baashi, halkanna waa IM252. Waxaan muuqaalkan kugula wadaagayaa ilaa 6 qodob oo kaa caawinaya inaad si fudud ku barato adeegsiga kombiyuutarka. Fadlan ila gaar dhammaadka muuqaalka. Si aad u barato kombiyuutarka, waxaan kugula talinayaa inaad tixgeliso 6 qodob ee soo socda. Qodobka koowaad, marka hore isku day kuna dadaal inaad fahamto waxa uu yahay kombiyuutarka. Taasi waxa ay kaa caawinaysaa inaad si fudud u barato maadaama aad garanayso waxa aad baranayso. Qodobka labaad, qaado koorso ama koorsooyin khuseeya kombiyuutarka. Inaad qaadato casharro ama koorsooyin waxa ay kuu fududaynaysaa inaad si fudud u barato aaladdan noqotay indhaha horumarka tiknoolajiyadda dunida. Qodobka saddexaad, samee practice joogto ah ama tijaabooyin. Qodobkan waxa uu daba socdaa qodobkii hore ee koorsooyinka. Inaad tijaabiso amaba aad samayso farsamooyinka aad ku qaadato mawduucyada waxay lafdhabar u tahay inaad si qoto dheer u fahamto kombiyuutarka. Qodobka afraad, iibso ama hel kombiyuutar si aad u samayso tijaabooyinka aad ku qaadato koorsooyinka barashada kombiyuutarka. Waa muhiim inaad haysato kombiyuutar ama laabtoob. Qodobka shanaad, ka dhabay hadafkaaga barashada kombiyuutarka. Wax weliba oo la doonayo in laga gungaaro waxaa khasab ah in lagu dadaalo lagana dhabeeyo. Qodobka lixaad, la saaxiib qof ku wanaagsan kombiyuutarka ama tiknoolajiyadda si fiican u garanaya. Ugu dambeyntii, IM252 Academy waxay kuu diyaarisay koorsada barashada kombiyuutarka oo aad ku baran doonto in ka badan 60 cashar oo si xirfadaysan aan u diyaarinay. Keliya muddo 15 maalmood ah ayaad ku baran kartaa kuna qaadan kartaa shahaadada kombiyuutarka. Si aad isaga diiwaangeliso koorsada barashada kombiyuutarka, fadlan booqo im252academy.com amaba nagala soo xiriir WhatsApp-kan shaashadda saaran. Waa inoo muuqaalka xiga. Nabadgelyo.